maanta waa fiican baa ka dhacaya ummaddeena waa soo baxday meeshana waa la buuxaa dadkuna waa yimid foodka waa la bixinaya maasha allah ilaahay baa noo nimceeyey soomaalidu waa maanta wax weyn baa qabatay ومحسنت بسال بيحي waxaan ka shaqeynayna ku jira guddiga doorashada ee Cabdi Warsame waa 9% weeye hadda waxaan soo maray 4 anigu waxaan qabarsanahay general operation ka oo ah maaragtay in lagu wareego fanhubino in each percent has right staffing iyo dadku inay soo baxaan yimaadaan waad arkaysaa gudaha si u buuxda maanta Ibrahim Kool waa taariikh waxaa kaloo jira waxa hadda ka nimid Philippines Community Center oo qaabilsan presidentgaas ah 24 ka eeyadiisa iyo guryaha 15 ka iyo saddexda gudoodan iyo 918 ka iyo taariikhda waligay Allah ma arag sida loo soo baxay maanta si loo soo baxay waxayna ka jawaabaysaa fariinteeda ahayd in maanta aan Soomaalidu ajiyaar u tahay markii ugu horeysay ee dadka Islaamka in ay galaan baarlamaanka wada history oo gobolkan soo martay weey marka maanta ito waxa hadda loo dhiman si wada wargareeno waxaan u maleynayaa in maanta after 20 years 20 sano kadib inaan gaarnay ahayd dareenkii ahaa inaan cidna wax loo qabanayn ee anagu saxaabadena biyaha ku cabbi sidaa daraadeed waxa tan ay u tahay test u tahay haddii Cabdi Warsame maanta uu ku guuleysto City of Minneapolis councilkeeda ama baarlamaanka waxay albaabada u furaysaa rag badan oo Maxamed waa kamid tahay adigu iyo gabdho badan oo leaders ah in ay u voodaan in ay u ordaan Congress-ka oo US in ay u ordaan Congress-ka gobolkan ama legislature-ka iyo Senate-ka u ordaan maanta to Somali American ama East African community waxay maanta ay tusaysaa oo test u tahay it's not only Cabdi Warsame it's about them kan marka waxa ku saabsantaa maanta to waxa weeye waa delegates April 16 waa delegates waaye waxa weeye dad representative oo ah soona kasta oo ah each precinct waxay leedahay number go'an bay leedahay hadda xafadan waa 69 marka waxa ku xigta doorashada weyn tan waxa weeye waa tii xisbiga dhexdiisa u kala baxay xisbiga marka aan doorano Cabdi Warsame waxa imaanaysaa in xisbiga dimuqraadiga ama DFL-ku uu support gareeyo completely Cabdi Warsame doorashada weyn oo general election-ka ah taasna waxay dhacaysaa November 3rd bay dhacaysaa oo 2013 sanadkaana taasoo ah one man one vote oo qof walba gacantiisa uu ku voodaayo taasna taariikh hor la dhici doonta laakiin taas waxay ku xiran tahay Cabdi Warsame inuu maanta midaan ku soo eligibility and last call letter of nominations on 7/15 followed by the reading of DFL action of statement and I will do a few more things which are fundraising appeal, election caucus chair, election board delegates, and election city delegates, and then we'll adjourn. That's the way we're going to do. annaga Soomaaliya aan u soo baxnay waxaan rabnaa inaan dooranno in la yiraahdo Cabdi Warsame yaan dooranaynaa ta Allah idmo waana diyaar baan u nahay aad oo weyn markaan bilaabgin waa noo dhow si tuman oo sharaf leh oo kalsooni oo soo qayb galay salaam alaykum oo baroon qoon iyo siida iyo angaarka oo dooranay anaguna si maxaad oo sharafna loo soo qayb oo kalsooni inta dambana way soo socotaa intaana way joogtaa waxaan yeelaynaa haddii Allah inaan dooranno aad u doon السلام عليكم وحواي مالين isugu yimid runtii in la doorto city council iyo mayor iyo election in Minneapolis marka waxa meesha ka cad bulshada Soomaaliyeed ka qayb qaadanayaan doorashada dimuqraadiga ah oo ka dhacaysa Minneapolis dawladda cityga municipalka cityga ilaa mayor xafiisyada kala duwan marka runtii wax lagu farxo inaan arintan ka shaqeyno ku boorino inay fahmaan sida isku doorto oo hadhow tumashada ka soo baxda hataa qofka haduusan ku faraxsano inuu ku qanaco maxay la process inuu yahay process la fahmayo sidoo ku dhacay oo lagu wada qanacsan yahay marka waa maalin runtii lagu farxo in ummadda Soomaaliyeed saan uga qayb qaataan doorashada bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maanta isku nimid inaan taageero walaalkayga Cabdi Warsame waxaan rabnaa inaan tusno community-ga faraha badan ee Minnesota inaan dadka Soomaalidu aynan ahayn cab drive iskaliya ay yihiin
dad wax dooran kara oo decision makerska ka mid ah marka waxaan rajaynayaa dadka Soomaalida inay taageeraan Cabdi Warsame aad iyo aad baan idin salaamayaa TV-ga dhammaantiin which means there will be half of B69 or so 45 will be women. لكن بوحيك القرآن يا محمد الإنسان فرق كبير ولا غير القرآن. أبكي عن بوحيك القرآن في عن واحد كذي واحد. أما عفنات دستي أما وفاء قرية قرية كم لها. ركب هذا الجوي يكون تراني كعاونة. وحد سمعنا إنسان وقلبي هذا القرية كهاي سو. I didn't all the way out to statistics. Gravity. ولا واحد يا كمان تقول تاني هاي لابد يكون يسألكي نيكي ووري سوماليا هاي أوضة تمايام هاي كو من دلوقت وحلو بهاي هاي وإنا دلوقتي المهم تاي حافظة ريكوسا كلي وحصوم دور ميسو وحال لسقطان إن حافظة كلها هاي كارمل إلا يريد سايد ولا سقطري هذا مركي هوري وحيكون أكيد إلا رجلين يستدر يكون أكيد حافظنا أنا وهذا سوير أيام تتم جدا هذا سومالي ولا سكول الطريق وحنا رأينا في كونتون عدك حافظان ورسيس كذي هذا سومالي أيام تجن ومهم يكون سومالي رضوته مركي هو رئيس الترنمان أديك وحنا ذكرنا سومالي كلية ما تقول شقيني وحنا شقيني عدان وحنا شقيني إسبانيش وحنا شقيني إنجليز وحنا بهاي كلنا نقرأ عركينو وحنا بدري كلا قف سومالي إلا هو مهم لكن واحد وصل على إنسان منطقة النيوهود سوير ويست فيلب عفوا الله يا نجسوا دورنا يا قيمة وقيمة كميرة مركب واحد يذكرنا مركب يقول يسمعها تتنقل كلام مركب لبعض أفضل ما صوماليا عديتهم عديد وتعودهم بيسمى فيرمر وحلو بها حكي كوات لبعض سدحات وثيقة ومهم قف دنتي لك شقينا صوصارتان وبلا يتوقف راين كولنا ومشى أي وبدنتها جالية الصوماليات وعن أتاجرناهاي دورشة يسير أن نقول لهين مسؤولنا مثله وأنا عبدي ياسين ورسمة عبدي ياسين ورسمة وقويهن دلني يراء دلنا أردية زون كاللحاد محافظة اللحاد سيدر وهم قعابو عدك يقوم بدايسان وإنا عبد ياسين ورسم السينو عبد ياسين ونكي وشحد ونقضونا شخص وهري وكم من نقضة سيدي كانسل كمقالة وين مينيابوليس ستيت كمينيسوتا بلانتينو وبيشا مي سدح هذا تاسو مالك عد بحنتا عبد ياسين ورسمة وإنو نقضة كانديديت كنجايا وأنا إنه نقطة شخصي وهري صوماليات أو كوليستا حلكاسي وأنا كوها بلياننا وأنا سوسا بحني وأنا تاجرنا وأنا كوليسنا يا حد الله marka u horeyso waa ku mahad celinaya Maxamed Cali in shaqada aad community-ga u hayso waqtiga dheer iyo mar walba inaad information-ka xaaladda jirta mar walba aad community-ga wargeliso waxaad la socotaa in la yiraahdo Maxamed Axmed Cali
waxaan ahay nin u taagan xilka dawladda hoose markii labaad 2009kii doorashadan waan ka qayb galay keligay baa Soomaali ka ahaa maanta ilaaha mahad iska leh laba Soomaali ayaan ku nahay waxaan rajaynaynaa muddada dhan soo dhawna inaan ka badan doono muhiimaddu waxay tahay aad Maxamed la socoto Soomaalida ugu badan Mareykanka waxay degan yihiin magaalada Minneapolis Minnesota mana qabno waxna matala marka in la helo rag xilka dawladda hoose oo dhibaatooyinka ugu hooseeyo dhinaca ganacsiga guriyaha muxuu ahaa baarkinada waxyaabaha community-ga maalin walba danqinayo qof wax ka bedel in la helo inay muhiim tahay xilkan hadda ka horna isku soo taagay marnaba isku soo taagay ana ugu talagalay inaan wax ka qabto dhibaatooyinka community-ga haysto aniga hadda wax ka qaban waayo qof kale oo Soomaali hadii la doorto wax ka qabto goolku waa intaas marka maxamed waxaan rajaynayaa Soomaalidu inay soo kacaan inay codeeyaan inay dhibaatooyinka haysto qofkii wax ka qaban lahaa ay u codeeyaan wadankaana waan deganahay lashadan haysanaa inaan ka qayb qaadano waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inaan heli doono dad hawshaas si awood loo ku qabto oo aan aniga ka mid ahay waadna mahadsantahay bismillaahir rahmaanir rahiim maxamed cabdi aadan maxamed saliidaa maanta waxa uu mid inaan ka qayb galo doorashada anigoo ku hadlaya magaca Riverside aan deganahay Riverside muddo badan waxaan rajaynayaa in isku doorashadaas waana mahadsantahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميشون وحاسوون من ولكن قالجا عبد ورسمة وكانديد سيتي كونسل اوف سيدا ريفرسايد كا بركوان سودوينينا ضمانتي وميشو وحاون من واسدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا عبد العزيز يوسف أكو عسول وشرحان Minneapolis City Council هل كانوا يسوي هذا سؤال بدن أو delegation سيعطوا وسيان marka oo soo dhaweynaa meeshaas ugu nimaasha insha Allah inuu ilaahay wax ka rajeynaa inuu guushaas helo ku guuleysto marka waan u badinaynaa marka aad baan u baadinaynaa ilaa ya salaam